waxaa jira jaamacadaha Sacuudiga qofka haduusan xareysan karin uusan awood u lahayn teknolojiyadan uusan garanayn qof garanaya intuu ula tago wixii khidmaha oo dadkaas ay qaadanayaan iska siiyo saas loogu xareeyo waa falxamdulillah laakiin waxaa jira oo mararka qaarkii aad maqashaa qof yani ku dhahayo jaamacadaha Sacuudiga waxaan ka helay scholarship ama minxa diraasiya oo lacag waxaa laga qaatay ama dii kale lacag la siiyay ee laga dalbaday $3,000 $4,000 dad noocaas dhahayo waxay ugu dambeysay 3 yani usbuuc ka hor arday dhahayo oo arday aan macallin waxa kamid ahaa dhahayo jaamacad Sacuudiga aan helay ustaadu jaamacadaas ka war haye jaamacadee baan dhahay jaamacadaha la ii soo diray waxaa laga qaatay $3,000 oo kale laga qaatay dhahay ama $2,000 meelahaas keenaa laga dhahay lacagadi xogaa yar oo ziyaada markaasaa jaamacada Sacuudiga waa bilaash lacag qof looga qaato ma laha nin walba saa xareysanayo wixii dawlad la siiyana dawladda loo maraa wixii qof shakhsi u xareysanayna shakhsigiisa u xareysana haddii lagu soo aqbalana uma baahna waxba ma baahan fiisahaagii waxa lagugu soo diraa gmailkaagii tikidkaaga gmailkaaga lagugu soo diraa adaa meeshaan ka baxayo wax warqadaaga haysatayo xaggan waxa kugu soo dhaweynayo Soomaali iyo dadka wadanka markaas jaamacada mas'uulka ka ahaa marka iska ilaaliya laakiin waxa sameyn kartaa qof ku xareynayo lacag khidma ah siinaysid waa okay laakiin jaamacad bilaashan ku keena lacag keen inta lagu dhaho oo lacagta lagu xareynayo aysan ahayn lacag ka badan ay tahay yaan lagu yani fursad yaan laga faa'iideysan oo meeshaas lacag laga qaadan lacagaas waxaad ku heli kartaa waxyaabo kale ku sameeysan kartaa ku shaqeysan kartaa marka hal iska ilaali insha Allah billahi kariim aan ku daraa insha Allah billahi kariim dumarka oo jaamacadaha ama gabdhaha jaamacadaha Sacuudiga dhameystay waxaa jirta master oo fursad ayadana jaamacad Malik Sacuud oo kala way jirtaa ay xareysan karaan arday ay soo aqbashan way jirtaa oo jaamacadaha Soomaaliya dhameystay oo meesha master xareystay marka fursadaas qofku waa inuu ka faa'iideystaa jaanibka ama qaybta dumarka dilada ama jaamacada markii la xareysanayo jaamacada islaamiya waxa u khaasa kaliya ragga dumarku ma jiraan baaj iyo master iyo doctorada jaamacadu waxay furtay hadeer ayadoo lacag qofkii lacag haystan uu lacagtiisa intuu la baxo meesha wax ka baran karaa waxay kaloo furtay qayb intisaab ah oo adoo wadanka ay joog wax ka baranaysid laakiin wadanka aad joogtid ma aha wadamada la sheegayo qofku waa inuu joogaa Sacuudi gudihiisa saas shardigaas ay u dajiyeen yani dadka waxay khaas u tahay wadan gudihiisa jooga dadka banaanka jooga maya marka insha Allah billahi kariim waxaan rajaynaynaa inaan ka wada faa'iideysan doono inta ka soo faa'iideysatana ay u faa'iideyn doonaan inta hore u soo faa'iideysatay billahi kariim